maanta waxaan idiin haynaa Ilhan Cumar iyo Elon Musk bilyaneerka weyn ee Elon Musk ee ku nool Mareykanka ayaa wuxuu ku eedeeyay Ilhan Cumar inay si sharci darro ah ku joogto dalka Mareykanka. Wuxuu sidoo kale sheegay Soomaalida badan ee ku nool gobolka Minnesota inay dhammaan ku yimaadeen sharci darro kadibna ay si sharci darro ah ku doorteen Ilhan Cumar. Ku soo dhawaada channelkada Somali Angle oo mar walba falanqeeya wararka caalamka ee quseeya Soomaalida. Bilyaneerka weyn ee Elon Musk oo ah ninka dunida ugu taajirsan ayaa waxa uu ku dhagan yahay Ilhan Cumar. Wuxuuna sheegay inay si sharci darro ah ku joogto dalka Mareykanka. Sidoo kale wuxuu ku eedeeyay Soomaalida badan ee ku nool Minnesota inay si sharci darro ah ku yimaadeen kadibna ay si sharci darro ah ku doorteen Ilhan Cumar. Balse isaga laftirkiisa Elon Musk ayaa waxa uu ku eedeysan yahay inuu si sharci darro ah ku joogay dalka Mareykanka. Jaraa'idka weyn ee Washington Post ayaa sanadkii la soo dhaafay 2024 wuxuu maqaal dheer uu qoray ku eedeeyay inuu si sharci darro ah Elon Musk uu dalka Mareykanka ku soo galay ama uu ku joogay. Jaraa'idkan oo xiganaya dukumeentiyo maxkamadeed iyo warar ay ka soo xigteen asxaab hore ula soo shaqaysay Elon Musk ayaa waxay sheegeen in markuu ardayga ahaa uu si sharci darro ah ku shaqayn jiray. Dadka laga soo xigtay inuu Elon Musk si sharci darrada ah ku joogay ama ku shaqaynaya dalka Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah xitaa walaalkiis. Elon Musk oo isdifaacaya kadib maqaalka Washington Post ayaa wuxuu sheegay in si sharci ah uu ku joogay dalka kadib markii uu fiisaha ogolaanshaha shaqada u helay. balse taariikhdiisa markii dib loogu noqdo Elon Musk wuxuu ku dhashay dalka South Africa kadibna wuxuu qaatay baasaboorka Kanadiyaanka uu ku helay hooyadiis darteed. Kadib Mareykanka ayuu soo galay sanadkii 1992 si uu jaamacadda Pennsylvania uga bilaabo waxbarashada heerka koowaad. 10 sano kadib ayaa waxaa la sheegay inuu baasaboorka Mareykanka qaatay. Wuxuu horaan u sheegay inuu markii uu jaamacadda Pennsylvania ka baxay uu galay jaamacadda Stanford si uu uga diyaariyo digriiga darajada labaad ee masterka. waana meesha ay khubarada socdaalka ay sheegeen inay cilada ka jirto. Waxay khubarada leeyihiin markii uu jaamacadda isaga baxay waxaa meeshaas ka baxay sharcigii shaqada ee ardaynimada uu ku joogay. Ilaa iyo haddana shaki weyn ayaa ka jira qaabka uu maray ama waddada uu maray qaadashada sharciga Mareykanka. Laakiin nasiib darro had iyo jeer Elon Musk wuxuu ku dhagan yahay dadka qaxootiga ee sida sharciga ah ku yimid dalka Mareykanka. Wuxuu qarash badan ku bixiyaa xisbiyada iyo shakhsiyada cunsuriyaasha oo doonaya inay taxiilaan dadka qaxootiga ah. waayahan dambena wuxuu si aan caadi ahayn u saaran yahay Soomaalida Mareykanka wuxuuna bumbuuninayaa been abuurka lagu hayo dhammaan Soomaalida ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ee ugu horreyso Ilhan Cumar. Balse Soomaalida ayaa hore waxay ugu maamahday tuug intaadan tuug dhihin ayuu tuug ku dhahaa. Fadlan ku xirnow oo la soco boggeenada Somali Angle si aad u heshid warar xiise leh iyo falanqeyn rasmi ah oo ku saabsan wararka caalamka ee quseeya Soomaalida. La wadaag asxaabtaada, like-tana ha ka iloobin.